السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن أصحابتك وحرن بيجكينا واتساب جروبكينا نقل صعدت sidoo kale kusoo dhawaada Shaaciya Agents wuxuu ku hayaa fursad kale oo aad qaali u ah fursadaas oo waxbarasho free ama free scholarship uu ku helayo dalka Germany uu qofku ku helayo hadduu aleedmo haddaba waxaynu soo arki doonaa minxadatan ama scholarship-kan waxaa bixinaya Friedrich Ebert waa deeq waxbarasho oo sanad walba ay bixiso organization-ka kan ay siiyaan ardada dunida oo idin siiyaan si ay qayb kaga qaataan inay waxbarasho free ah ay ku bartaan dalka Germany. insha Allah taala xogtan adiga ayaa soo akhrisan doona xogtan markaad akhrisato then waxaynu soo arki doonaa insha Allah taala faa'iidada ay leedahay scholarship-kan muxuu yahay inuu qofku helayo lacag billah gaaraya $861 sidoo kale inuu helayo caymiskii oo qofka hadduu xanuunsan caymiska inuu helayo hadduu yahay qof family ama caruur lehna in lacag dheeri ah oo siin doona ayaa halka ka muuqata xogta adiga ayaa tartiibtaada u akhrisan doona then waxaynu soo arki doonaa halka kan haddii aad doonayso inuu kaa caawino waa qoraal aad ku xiisa gelinaya waxaa codsan kartaa adigu raacaya linkiga aan kuusoo dhigna halka inaad raaca wax xareysan kartaa haddii aad doonayso inaad fursadaada biiriso oo aad dalbato Shaaciya Academy inuu kuu xareeyo isagana halkan ayaa ka codsan kartaa sidoo kale waxaad kusoo biiri kartaa WhatsApp groupkeena Telegram groupkeena sidoo kale waxaad iska diiwaangelin kartaa koorsadeena adigoo halkan taabanaya waxaa jira koorsadaynu fasilnay aan ugu magacdarnay Emergency Preparedness Response Training koorsahaas oo koorso oo qofku markuu barto ku helayo shahaado international oo maxaa la yidhaahdaa uu heli doono shahaado ay bixin doonto UNICEF ay bixin doonto haddaba adeegyada inuu bixino waxaa ka mid ah dalbashada deeqaha waxbarasho waxaa ka mid ah inaan codsi inaan ku sameyno amaba inaan ku xarino form lagu codsanayo tababarada frontier iyo fursadaha shirarka dunida ka banaan asxaab badan inuu xarinana ay jirto sidoo kale waxaanu ka caawin doonaa diyaaradda dokumentiyada sida CV-yada waraqada dhiirigelinta warqad loo yaqaano personal statement ama warqad shakhsiyadeed qofka naftiisa kaga hadlayo warqadaha talabixinta ama recommendation letter haddii aad tahay arday jaamacadeed diyaarinaya buugga thesis-ka ay ku adagtahay isagana ka caawin doonaa sidoo kale qoraalada iyo shuruudaha waxbarashada scholarship aynu kusoo gudbin doonaa waayahay warbixin ku aadan marka scholarship-ka daynu soo arkno dalka martida loo yaaba Germany deeq bixiyaha waxaa weeye dalka dowladda Germany ayaa bixin doonta waxaana bixin doonta gaar ahaan organization-ka loo yaqaano Friedrich Ebert jaamacadaha waxaa lagu baranaya waxaa dhammaan jaamacadaha guud ee maxaa la yidhaahdaa ee xukuumiga ama dowladda ay leedahay heerarka waxbarasho aad dalban karto page kasta ardayda codsan karta waa dhammaan ardayda dunidooda da lagu xirayo shadimiya jira qofka inuusan da'da ka weynaa may shakhsiyadii da'da ma jirto xilliga kama dambaysa codsiga deeqda waxbarasho aad codsan karto ilaa 3 April ayay furanta 2022 marka Janis weyn ayaynu haysanahay inuu isku diyaarino sidoo kale kulliyadaha dalban karo ama codsan karo waxaa ka mid kulliyadaha waaweyn sida social science faracidiisa humanities faculty of natural science faculty of health science engineering iyadana meesha ka marnayn insha Allah taala sidoo kale waxaynu soo arki doonaa Friedrich Ebert scholarship wuxuu noo dabooli doonaa ama ka qaadi doonaa inaad hesho waxaa la yidhahdaa dhammaan kharashaadka waxbarashada sidoo kale deeq bixiyaha wuxuu bixin doonaa gudno bilaa ah sidoo kale iyo caymiskii inuu qofku helo maxay tahay marka dokumentiyada laga doonaya si aan xareysa foomka kan codsiga kan waxaa laga doonaya inaan buuxiyo ugu horeyn deeqda waxbarasho foomkeeda inaan buuxiyo kadib waxaa laga doonaya inaan sawir Allahumma musta'an sawir teesara oo background-giisa caad u yahay inaan sameeyo sidoo kale copy passport inaan keeno nuqul ka mid ah shahaadada qalinjabinta inaan keeno waa shahaadada ugu dambeysay qalinjabinteeda kaliya haddii aan doonayo master waxaan shahaadada baashka laga doonayaa haddii aad doonayo batch wax laga doonayaa shahaadadii secondary-ga iyo fasalka ugu dambeeya form 4-kii ay ku caddahay aqoon sahan CV motivation tabaqad dhiirigelina oo ku caddaynaya qofka sababta iyo reason-ka uu ku dooranayo jaamacadda tan waxaa kaloo laga doonayaa qofka recommendation letter oo ah warqada uu ku caddaynaya qofka ama talabixin laga bixinayo talabixinta waxaa ka bixin kara macalinkiisa maamulkiisa ama iskuulka warqada uu ka bixinayo qofka inuu yahay qof wanaagsan sidoo kale waxaa laga doonayaa shahaado oo caddeyn luqada inuu yaqaano waa haddii ay jirto way taa shardi maaha
haddaba sidaan u codsan karaa waxaad buuxin kartaa foomka codsiga adigoo raacaya adigoo ku dhufanaya halka kan sidoo kale foomka wuxuu ku qoran yahay luqadda Germany buu ku qoran yahay haddaad doonayso fasiraadda iyo ku turjuma luqadda Ingiriiska waynu kusoo turjumnay juhdi baynu gelinay xaggan ayuu ku jiraa sidoo kale page-ka rasmiga ah ee deeqda waxbarasho isagana halkan ayaa ku dhufan kartaa si aad u aragto page-ka rasmiga ee deeqda waxbarasho waxaan rajeynaya insha Allah taala inaad ku guuleysan doontaan haddii aad doonayso inaad isdiiwaan geliso waad awooddaa inaad halkan marto haddii aad doonayso inaan kaa caawin inaan kuu soo dirno video step by step kugu sharaxaya habka isku diiwaan geli lahayd waxaa bixin doontaa $6 $6 waxaa kuula socda inaad hesho course ama training aad u qiimo badan oo UNICEF ay bixin doonto shahaado UNICEF qofku ka helayo magaceedu leeyahay emergency preparedness and support training haddii aad doonayso inaan ku xareynano waxaa bixin doontaa $25 sidoo kalena trainingkiina waad heli doontaa waxaan rajeynaynaa fahanteen guriga gobonimo insha Allah taala aad baa mahadsantihiin